guud ahaanba gobolka Togdheer iyo sidoo kale deegaanada kala duwan ee hoos yimaada waxa maanta si rasmi uga bilaabmay isla markaasina shacabka kala duwan ee deegaanada gobolkan Togdheer hoos yimaada iyo magaalada Burcaba ay u dareereen qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka oo si rasmi uga furantay gobolkan Togdheer xubno kamid ah gudida komishinka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen bilowga qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka ee ka bilaabantay gobolkan Togdheer waana kuwan iyaga ka hadlaya ilaahay baa mahad leh maanta waxaanu joognaa caasimadda gobolka Togdheer ee Burco taariikhduna waa 8 bishii 7 2017 ilaahay baa mahad leh inoo suura geliyay geedi socodkii intaas ahaa in labada gobol ee ugu waaweyn jamhuuriyadda Soomaaliland ee Muwaadinka iyo Togdheer ay isku maalin ka bilaabanto si nabadgelyana uga bilaabanto kaadhkiina si toos ah imka loo qaadanayo waa ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu inoogu dhameeyo nabadgelyo iyo si wanaagsan iyo kaadhka oo si fiican loo qaato ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inoo geliyo qodobka labaad waxa weeye inaan halkan maadnaq ballaaran uga soo jeediyo saddexda xisbi qaran iyo gudoomiyaashooda oo runtii si aad iyo aad noola shaqeeya oo goob walba iyo xilli kasta oo aan u baahano ee talo iyo tusaale iyo qorshaba aan wax ka weydiino noo gacan furan oo noo hagar baxsan noo gacan furan ma xaqi dhaqaalaha ee xaqi macnaha imaanshaha xilli walba waxaan kaloo maadnaqaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aad iyo aad u qayb qaadatay dhaqaalaha ku baxaya kaar qaybinta iyo doorashada labada waxaan kaloo maadnaqaynaa hay'adaha naga caawiya qabsoomada doorashada ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii iyaguna gacan weyn ka geysta haday noqoto mid khibradeed iyo haday noqoto mid dhaqaale waxaan aad iyo aad ugu dardaarmayaa dadweynaha gobolka Togdheer oo maanta dhex joogno inay isku dayaan inay kaadhkoodii qaataan oo si nadiif oo qaanuunka ogol yahay ay ku qaataan gees secretary musharax madaxweynenimo xisbiga xaakimka kulmiye musharax madaxweynenimo xisbiga wadani iyo sidoo kale mas'uul ka socday xisbiga mucaaradka iyo wicid oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa waxay si isku mid ah shacabka kala duwan gobolkan Togdheer ugu baaqeen inay qaataan kaadhka codbixinta muwaadinka maanta waxaynu nimid oo kaliya waa kaadh qaybin xisaabtu waa inay ka midaysnaataa ereyga ah inay tahay kaadh bixin oo kaliya in kale waxaynu ilaa xalay waxaan maqlaynay bugun iyo guux iyo calaamad maqlaynay sida aawadeed waanu ka go'an anagu waxaan naga go'an in aan u nimid oo kaliya daan xisbiga u cidnahay in kaadhka laga qaybiyo labada gobol oo kaliya dadweynaha waxaan ku wacyigelinayaa waan ku baraarujinayaa waxa ugu muhiimsan shanta maalmood baa ugu muhiimsan waan ku taageersanahay madaxdii maalmahan oo dhanba ku baaqaysay in la qaato kaadhkan qaadashadiisa iyo hawshaanu gelaynaa aynu isla fahamna micnaheeda waxaanu hawshan u gelaynaa inuu qarankeena dhisno inaanu taladeena ku wanaajino inaanu dalkeena horumar ku gaarsiino in sida xeerkeenu dhigayo 5 sanaba mar hoggaanka dalka oo ka kooban golayaasha madaxweynaha iyo ku-xigeenka fulinta iyo baarlamaanka oo wakiilada iyo gurtooda sharci loo sameeyo in 5 sanaba mar dhig cusub lagu shubo oo doorasho la galo iyo golayaasha deegaanka ayaynu talada sharcigeeda iyo dastuurka shacbiga waxa loo qof walba waxa codkiisa iga codeeya waa maatay kii saaxiibadiisa waa maatay waayo Soomaaliland aad iyo aad waa maatay waa inoo qaran dhis waa maalin qaran fariinta ugu muhiimsan waa tii hore loo soo gudbiyay waddan kasta inuu qaato kaadhka suuqaha xuquuqdiisa codbixinta waddanku xaq u leeyahay xisbigu u codeynaya laakiin waxa muhiim ah inuu qaato kaadhka si aan xuquuqda waayay waxaanu baaqaynaa shacbiga gobolka Muwaadinka iyo gobolka Togdheer inay kaadhka qaataan si ay u codeeyaan isku soo wada xooriyo qaadashada kaadhka codbixinta muwaadinka ayaa guud ahaanba gobolkan Togdheer iyo deegaanada hoos yimaada si habsami uga bilaabantay waa Khalid Bakayle fogaanada xorta Star TV Burco.